ku dhintay doon dhawaan ku degtay magaalada Beledweyne oo fatahaado xoogan ay ku dhufteen ayaa la shaaciyay faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay dooni saaka mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle kula degtay magaalada Beledweyne oo fatahaad ka geystay webiga Shabeelle ee mara halkaasi agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Hirshabeelle Maxamed Macalin Xasan Kulmiye oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyay in dhacdadaasi ay ku dhinteen ilaa 7 qof oo isugu jira mas'uuliyiin ka tirsan maamulkaas iyo waliba dad shacab ah sidoo kale agaasimaha ayaa shaaciyay magacyada mas'uuliyiinta ku dhintay shilkaasi kuwaas oo kala ahaa Dahabo Xasan Axmed oo ahayd la taliyaha dhinaca haweenka ee madaxweyne Maxamed Cabdi Waare Sharmaako oo isagana ka tirsanaa xafiiska dawladda hoose ee Beledweyne iyo Deeqo oo ahayd gabar u dhaqaaqaysa arrimaha bulshada doonta qalibantay ayaa waxa saarnaa in ka badan 20 ruux oo ay kamid ahaayeen duqa Beledweyne Safiyo Xasan Sheekh Cali iyo gudoomiyihii horeeto ee gobolka Hiiraan walow la soo badbaadiyay labadaas mas'uul xaaladda ka jirta Beledweyne ayaa ah mid aad u adag waxaana saameyn daran ay ku yeelatay fatahaadda webiga Shabeelle oo halkaas ka geystay gudaha magaaladaasi fatahaaddan ayaa sidoo kale ta saameysay garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif oo gebi ahaanba xirmay taas oo ugu sii dartay dhibaatada ka jirta halkaasi dhawaan dawladda Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle ayaa gudiye ka tirsan labada dhinac u magacaabay gurmadka fatahaadaha ka jira gobolka Hiiraan iyo waliba Shabeellada Dhexe sidoo kale qaramada midoobay ayaa sheegtay inay wax ka qaban doonto dhibaatada fatahaadaha ee ka dhashay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Hirshabeelle dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay sameynayso maxkamad gurguurta si looga hortago in la boobo gargaarka la gaarsiinayo meelaha ay saameeyeen fatahaadaha roobka dayrta iyo waliba wabiyada ee dalka guddiga gurmadka qaran ee uu dhawaan magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen Muqdisho waxa ay baaq u direen Somaliland Puntland iyo galmudug oo ay ka codsadeen in ay kaalintooda ka qaataan gurmadkaasi waxa uu guddiga sheegay in garoonka diyaaradaha ee Beledweyne aan la adeegsan karin xalna loo baahan yahay maadaama uu ku xirmay fatahaadii ka dhashay magaalada Beledweyne waxa kale oo ay sheegeen in ay hal diyaarad oo helicopter ah ka heleen qaramada midoobay hase yeeshee aysan ku filnayn wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa waxa uu sheegay in goobaha gargaarka laga fidinayo la geynayo maxkamad gurguurta si loogu maxkamadeeyo shakhsiyaadka uu damaca ka galo gargaarka loo wado dadka ku barakacay fatahaadaasi magaalada Beledweyne ayaa waxa ka soconaya gurmad loo sameeyo dad fara badan oo saameyn xooggan ay ku yeesheen fatahaadii halkaasi dhawaan ku dhuftay fatahaadaha ka dhacay gobolka Hiiraan ayaa waxa ku geeriyooday mas'uuliyiin ka tirsanaa maamulka Hirshabeelle halka kuwa kaleetana laga soo badbaadiyay sidoo kale ayaa waxa qaramada midoobay ay sheegtay in dad aad u fara badan ay ku barakaceen gudaha magaaladaasi kuwaas oo u baahan in la gaarsiiyo gargaar bini'aadanimo si looga samato bixiyo dhibaatooyinka halkaasi ka soconaya horay ayaa waxa sidan oo kale magaalada Beledweyne u dhacay fatahaad xoogan oo saameyn ku yeelatay nolosha magaalada Beledweyne kuwaas oo ay sababeen fatahaado iyo waliba roobab xoogan oo ku dhuftay magaaladaasi dhowr sano ka hor wali daawadayal waxda socotaan shabakada wararka ee warqaad tiyub qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan daawadayal soo gaarnay iminkana furitaanka kulamada baarlamaanka maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa dib loo dhigay kulan degdeg ah oo ay maanta magaalada Jowhar ku yeesheen guddiga joogtada ah ee baarlamaanka Hirshabeelle ayaa waxa lagu go'aamiyay in dib loo dhigo furitaanka Abdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay sii xoojin doonto gurmadka deegaanada dhibaataysan waxa uu ugu baaqay culimada ururada dhalinyarada haweenka dhammaan ururada bulshada rayidka inay si wadajir ah ugu kacaan caruurta haweenka waayeelka iyo muwaadiniinta dhibaataysan oo badankood dhirta kor saaran halka muwaadiniinta ilaa haatan la samata bixiyayna ay gurmad cunto biyo iyo hoy degdeg u baahan yihiin madaxweynaha ayaa u soo jeediyay shaqaalaha dawladda dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dakhlilayda ah in qayb ka mid ah mushaarkooda ay u qoondeeyaan walaalahooda ay dhibaatada soo gaartay isagoo ku bagaadiyay ganacsatada Soomaaliyeed kaalinta mugga leh ee ilaa haatan ka qaateen howlaha gurmadka cadadaas faraha badan ee dadkaas ku dhibaataysan meeshaasi waxay sugayaan waa annaga waxay sugayaan dawladooda waxay sugayaan culimadooda waxay sugayaan ganacsatadooda waxay sugayaan shacabweynahooda Soomaaliyeed inay gargaar degdeg ah loo fidiyo maanta waxaan la kulmay aan u yeeray safiirka dhowr safiiraan u yeeray 3 safiir baadiba kulliin ka soo jawaabay markiiba waxa ugu waaweynaa safiirka maxaan ku raahdaa Turkiga iyo Qatar oo aad ogtihiin markii daadkaanu dhacay sanad iyo bar ka hor markii uu soo gurmaday daadkaas runtii kanoo kale ma ahayn laakiin ma sahlin say naftiisa mid aad iyo aad u dhib badan oo dadka dhibaato badan gaarsiiyo ahaa
iyagaana markiiba ka soo jawaabay dadka raashin iyo waxyaabahay u baahanayeen gaarsiiyey haddana waxaan ku yidhi waxaan rabaa inaad door fiican ka ciyaartaan oo marka ugu horeysa aad awoodaan aad deeq gaarsiisaan dadkaas muslimiinta waalihiina ah waana aqbaleen waxaan ka sugaynaa inay dowladahooda la hadlaan oo sida ugu dhaqsiyaha badan ay dadkaas soo gaarsiiyaan wixii kaalmo ah ay gaarsiin karaan laakiin annagaa la rabaa inaan isku tashanno caalamku weligoodba waana taageerayn intayna taageeri karaan laakiin kolley baan waxaan aaminsanahay haddii qof walba oo muwaadin soomaaliyeed uu qayb ka noqdo idinkuna aad hogaamiyaal ka tihiin inaan dhaqaalo badan aan gaarsiin karno dadkaas waalahayna tabaalaysan haddaan u istaagno culummada hadda ka hor dhowr arrimood san oo kale ah musiibooyin dhacay ka qayb galeen iyagaana gaar loogu xisaaray wixii loo dhiibana sidii ay ahayd ammaanadii iyo ummaddii u gaarsiiyeen haddana annaga naftigeena gacan yaan ku siinaynaa ganacsatana saasoo kale ahaayeen iyaga naftigooda oo meel kasta ay joogaan runtii intay iskaashadaan hadday degan yihiin hadday joogaan waxaan ku yidhaahdaa looyacaddo ilaa raaskambooni inta udhexaysa wax alla wixii kaalmaha intay isu geeyaan yaan maxaan ku rahda la gaarsiin jiray dadka hadda saa sheegteen oo aan informationka iyo macluumaadkan ku hayno ama xoogtaan ku hayno arrintu waa ka adag tahay sidii hore saas darteed inaan cid walba gaarsiino idaacadahaan kala hadalno iyo si kasta oo aan dadku gaarsiin karno masaajidyada in qof walba oo Soomaali ah qof walba oo muwaadin ah ama ha joogo gudaha ama dibaddaba inaan weydiisano kaalmo si dadkaas waalahayna aan u badbaadino insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo Ilaahayna waana garab istaagi waxaan aaminsanahay waqtigu waa muhiim haddii aynan gaarin labada bilood soo socota dhibku intaas ka sii badanayo culummada iyo ganacsatada qaybta ka ahaa kulanka ayaa talooyin iyo aragti celin ka dhiibtay warbixinta ay soo bandhigeen guddiga qaranka ee gurmadka fatahaadaha waxaana si wada jir ah la iskula qaatay in la ballaariyo abaabulka isku tashiga shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ee lagu wajahayo dhibaatada ka dhalatay fatahaadaha jeedinta madaxweynahana annagu diyaar u nahay dhan ganacsatana inaan ka qayb qaadano dhaqan ahaanna awal baan dhaqan u lahaan jirnay inaan isku gurmano maanta waxaa fursad kale noo sii ah dowladna gacan siinaysa oo dadkii noola gurmanaysa wax abaabulaysa inaan haysano iyadoon dowladii jirin baa ganacsatada iyo culimada diinku intay iskaashadaan gurmadyo waaweyn oo aan maantay aan la bixin karin ay bixin jireen marka waxaan isleenahay maanta haddii dowladdii oo abaabul iyo aqoonsi iyo xoog badan haysa ay idinku soo biirtay oo ay arrinta hogaaminayso ilaahay fadligiisa waxaanu ku soo roobi waada maahane iskaashi la'aan wax ku dhici maayaan annaga ganacsataan waa soo dhaweynaynaa guddi joogto u shaqeynayo isku jira oo ganacsato waaweyn iyo culamaa udiin iyo golo wasiirro iyo xubno ururada bulshada ka socda oo toosna madaxweynuhu uu yani maaragtay taxta ishraaf ra'iis ku shaqeynayo toos oo isagu maaragtay in la dhaqaajiyo maalmahan soo socda taasna waxaan is leeyahay dadka dibadda jooga Soomaaliyeed iyo dadka gudaha jooga iyo ganacsatadeena runtii oo arrimahan gurmadka aad wax badan uga soo qabteen shirkadii waaweyn waa fadhiyaan hadda oo kaligood $100,000 bixin jira marka xaaladdan kale ay dhacdo waagii culimaduna ay runtii aad u maaragtay u dhaqaaji jireen sidii hormood iyo dahabshiil iyo kuwa kale iyo wada fadhiyaan marka in arrintaasna heer kasta mujtamac uga qayb qaato heer qaran laga dhigo oo gurmadkeeda weliba la yiraahdo maaragtay waxaa lagu bixinayaa xataa yani tanaafus ilaahay quraankiisa wuxuu leeyahay يعني فليتنافس المتنافسون يعني خير إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون مصيبة ربانية نقول علي waxaa ku dhacday beledweyne daad iyo biyo roob marka saaki waxaan usoo baxnay inaan gurmad dad go'doon ku ah guryahooda inaan gurmad u noqono alxamdulilah intaan dhex ku jirnay doontiyaa nala gadoontay webigii iyo waadi meelay dhahaayaan oo biyaha iyo weliba iskaga darsoomaan ayaa hir camal nagu yimaaday sidii marka doontii noola gadoontay ilaa 10 qofood aan ku weynay aniga iyo gudoomiyihii hore iyo advisorka oo madaxweyne waare ilaahay naga badbaadiyay marka sidee adinka ku soo badbaadeen ma idin soo gaaray bal sawir yar naga sii jawigaad ku soo badbaadeen anaga ilaahana badbaadiyay laakiin dabaal aan aqinay ayaan darbi masaajid dabaalnay kadibna darbigii ayaan kornay
waa garta marka 10 qof ee dhimatay marka laga soo tago Dahabo Axmed 9 kale oo qof maxay ahaayeen 9 qof oo kale waxay ahaayeen yar xogeynteedii ahaa Sharmaashka la dhahayay yar wuxuu ahaa gudoomiyihii ururka dhalinyarada degmada Shibis oo halkaan u yimaaday inuu dhalinyarada fasaxan ka soo qaatay gudoomiyaha degmada Shibis inuu dhalinyarada dhiso oo iga kaalmeeyo wiil kale intana darawalkiisu ahaa 4 qofoodna waxay ahaayeen dadka leenshowyadana diyaar ka tegaysay oo markii naga codsadeen in ay raacaan waa gartay bal marka waxaad iiga warantaa 10 qof meedadkooda ma la wada helay mase Dahabo kaliya la helay may hal qof meedkiisa ay hadda la helin ilaa hadda helicopterka ayaa raadinaya hadda waxaan joognaa xafiiska UN-ka ee degmada Beledweyne ku yaalo haddii la helan insha Allah waa niilo soo socodsiin doonaa maxaad ugu maleynaysaan inay dhinteen marka 10 qof mase waa la la'yahay kaliya idan ka tahay wallahi waxaan ugu maleynaynaa anaga meesha markaa derbiga soo kornay meesha waxaan joognay 2 saacadood aan ku go'doonsaneen ilaa doon kale nooga imaado marka 2 saacadood waxaan raadinaynay qof dhaqdhaqaaqayo 3 qofood waxaan aragnay meel geedo heestaan 3 qofood la soo badbaadiyay laakiin intaan kale inta aanan helin alxamdulillah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun marka gudaha magaalada Beledweyne miya mase banaankeeda waayo meeshaan dadka intaasi in la eg wabiga uu qaaday moolkaas waa gudaha magaalada Beledweyne dadka ku go'doonsanad u gurmanayseen dagax gubis ya halo dadka ku go'doomay oo u gurmanayseen tiradooda waa intee in la eg oo qoysaskood ii sheegtay 50 qofood la igu dhahay waa garta wax dhimasho ayagana ilaa hadda wax dhimasho kama warhayno anaga xalay roob badan da'ay biyo baxa wuu jiray laakiin roobkii xalay da'ay ayaa wabigii uu sii buuxsamay laakiin waxaan dadka gargaarka ugu fidinayna roobkii xalay da'ay ayaa biyihii gurigii ka sii buuxiyay siday rabeen inay kusoo baxaan ka hor wax ilaahay waa joogi karnaa gurigeena korkiisaan joogayna laakiin roob maadaama uu da'ayo caruur yaryar iyo dad qooshin ah waxay u baahdeen in laga soo bixiyo waa gartay marka ogaanteeda biyaha webiga waxay ahaan jireen kuwo fadhiyo marka ay xataa daadadka ay soo baxaan marka adinka mahir ayaa idin yimid doonti aad saarnaydeen maxaa ilaa heerkaas xoogga ay ku gadoonto keenay waadigii roobka biyihii keena ayaa xoog lagu dhuftay doonta waata hadda marka darawalkana tartiib gudoomiyihii hore wuxuu dhahay tartiib waadiga biyo xoog ay usoo socdaan tartiibka uu dhahay iyo doontii gudoonta isku imaatay waa garta hadda ugu dambeyntii masiibadan fatahaada ee Beledweyne ka jirto xaddigeeda maxaad ku qiyaasi lahayd wallahi waxaan ku qiyaasi karan ma jirto marka runta kaala hadlo waa masiibo rabbaani ah ilaahay ha naga caawino hadduu alla yidhaahdane sidaa la socotiin madaxweynaha iyo prime ministerka iyo madaxweyne Waare way ka shireen long time plan hadda laga fikirooya mar ma aha laba ma aha waa wax soo noqnoqonaya marka hadda waa wax in aysan hadduu alla yidhaahdo waxaynu kusoo noqon doonin hadda